Labaatan ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Ekis Control Afgoye ee magaalada Muqdisho isla markaana dhaawacyo culus qabay ayaa waxaa loo qaaday wadankaasi Qatar. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa kusii sogootiyay dadkani dhaawaca Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre xubno ka tirsan golaha wasiirada ka socday maamulka gobolka Banaadir ehelada dadkii dhaawaca soo gaaray. Diyaaradda laga leeyahay wadankaasi Qatar markay baxday waxaa warbaahinta shir jaraa'id u qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Zakiye Xuseen Axmed oo sharaxday tirada dhaawac ee la qaaday iyo xaaladooda caafimaad sida ay ahaayeen. Bismillahirrahmanirrahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Markii hore waxaan tacsiin u dirayaa dhammaan eheladii dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay Ekis Control Afgoye shalay. Tan iyo shalay waxaan ku guda jirnay daadgureynta dadkii dhaawacyada ka soo gaaray. Maanta abaara lawe iyo barkii duhurnimo waxa diyaarad ay soo dirtay dawladda walaalaha ee Qatar ay soo degtay ka soo degtay garoonka Aadan Cadde. ilaa iyo duhurkiina waxaan ku guda jirnay daadgureyntii dadkii oo naga haray oo weli isbitaalada aan ku dabiibeynay. maantana waxay qaadaysaa 22 qof oo ka mid ah dadkii wax ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Ekis Control Afgoye kuwii ugu darnaa. inta kalena waxaan ku dabiibeynaa biidnillaahi tacaala dalka gudihiisa. sidoo kale diyaaradda waxay siitay takhaatiir oo ka timid Qatar iyo daawooyin. shalayna waxaa timid diyaarad ka timid dalka Turkiga iyadoo sidoo kalena siday takhaatiir iyo daawooyin oo ka timid dalkaas. takhaatiirta qaar way noo hareen si oo markino loo sii dabiibo dadkii markino dalka lagu dabiibi kara. intii kalena lagu dabiibi karina waa la qaaday biidnillaahi tacaala. biris waxday ka degi doontaa Dooxa halkaas baa lagu dabiibi doonaa. wixii ka soo kordhina waa la soo socodsiin doonaa biidnillaahi tacaala. Shalay ay ahayd markii diyaarad laga leeyahay wadankaasi Turkiga magaalada Muqdisho caasimadda dalka ay ka qaaday dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Ekis Control Afgoye ee gobolkan Banaadir kuwaas oo tiradoodu ay gaaraysay 16. mid ka mid ah dadkii dhaawac cuslaa qabay ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday wadankaasi Turkiga. haatan waxaa la tacaalayaa xaaladooda caafimaad 15 ka mid ah dadka dhaawacyadaasi qabay.